wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka wararka Soomaalida waa 24 bisha 10 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah maxaa madaxtooyada Soomaaliya uga qarsoon kiiska dacwadda badda mugdi hareeyay mowqifka dowladda federaalka oo ku hanjabtay dalaabo ka dhana cidii masuqmaasuqeeda sheegta maxay munasharmaan uga baxday qareenada difaaciya Soomaaliya iyo xog muhiim oo aan idinkaga hayna sababta shirkadda DB World oo shaacisay dhaawac weyn oo ka soo gaaray dagaalka Djibouti iyo shirqoolka ay ka wada Soomaaliya iyo madaxweyne Dani oo fadeexad ku soo baxday iyo dil ganacsade caan ah oo lala xiriiriyay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay iyadoo madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo looga bartay inay ka gaabsadaan ka hadalka arrimaha masiiriga ee dalka uu wajahayo intii uu talada la wareegay Farmaajo February sanadkii 2017 ayaa xilligani waxay mar kale madaxtooyada dhexda ka fadhidaa mugdi weyn oo hareeyay mid ka mid ah arrimaha qaran ee ugu waaweyn xilligan kiiska xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya waa arrin qaran oo Soomaalida oo dhan ka midaysan tahay inaan wax gorgortan laga gali karin waxayna horay ceeb siyaasadeed oo aan ka harin uga raacday siyaasiyiin ku lug yeeshay inay Kenya la saxiixdeen isfahamka ay ku dooday inay Soomaaliya la gashay laakiin madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo waxay ku fashilmeen inay dadka Soomaaliyeed u cadeeyaan sida kiiska u socdo iyo arrimaha ku xeeran taniya intii ay dowladda Kenya bilowday culayska diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ku haysato si uga noqoto dacwadda badda oo arintani laga xaliyo maxkamadda ICJ banaankeeda waxa uu madaxweyne Farmaajo galay qaladkii weynaa ee keenay inuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u raaco dalka Kenya halkaas oo lagu dhexdhexaadinayay isaga iyo Uhuru Kenyatta kadibna madaxtooyada ku qasbanaatay inay beeniso xaqiiqda ahayd in laga wada hadlay xal u helida kiiska dacwadda badda kulankii magaalada New York ku dhexmaray madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya oo dhexdhexaadinayay madaxweynaha Masar waxay ahayd talaabo kale oo shaki leh laakiin madaxtooyada Soomaaliya ayaa baahisay warbixin iyo sawiro ku saabsan kulanka iyadoo Kenya wax hadal ka soo saareen waxayse markan si cad u sheegtay in laga hadlay arinta badda ee Soomaaliya ku adkaysatay in maxkamadda ICJ lagu dhameeyo waxaana arintaasi markii ugu horeysay mowqifkiisa golaha guud ka cadeeyay madaxweyne Farmaajo muddo kadib waxa xaaladda dib u soo kiciyay dib u dhigista markii labaad ay maxkamadda ICJ ku sameysay dhageysiga dacwadda badda ee la gaarsiiyay June 2020 iyadoo mowqifka dowladda arintan ka qaadatay aan warbixin cad laga siinin shacabka arrimaha ugu waaweyn ee dhaliyay shakiga laga qabo waxyaabaha u qarsoon madaxtooyada ee kiiska badda waxa kamid ah inay madaxtooyada gacanta ku hayso kiiskan oo madaxweyne Farmaajo uu si toos ah ugala hadlo dalalka iyo dhinacyada caalamiga ee doonaya in dacwadda laga soo celiyo maxkamadda ICJ in madaxtooyada ay qariso dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo dalalka dunida ee ku lugta leh kiiska badda oo qaarkood ay iscadeeyeen qaar kalena ay qarsoon yihiin sida Mareykanka, Itoobiya, Masar, Qatar, Norway, UK iyo kuwa kale inaysan madaxtooyada Soomaaliya ka gaabsato markii arin weyn oo kiiskani ku saabsan looga baahdo faahfaahin sida qaabka ay munasharmaan uga baxday qareenada kiiska ku difaacaya Soomaaliya sida safiirka Mareykanka Kenya ku yimid Soomaaliya iyo faragelinta qaawan ee dowladda Mareykanka ku hayso kiiska si looga saaro maxkamadda inay madaxtooyada ka hadalka kiiska badda u adeegsato safiirka Soomaaliya midowga Yurub iyo Kenya iyo ra'iisul wasaare ku xigeen culayska weyn ee saaran madaxweynaha Soomaaliya ka soko waxay awoodi weysay madaxtooyada inay xaqiiqda kiiskan la wadaagto shacabka waxaana ay gashay difaac adag inay baahiso hadba wixii war ee soo shacbaxa taasina waxay ka yimid natiijo muuqaal xun u yeeshay madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka kiiskan waxa uu ku filan yahay inuu galaafto rajada Farmaajo ka qabo in dib loo doorto ama xil dambe oo qaran madaxda dowladdan xilka haysa haddii ay isku dayaan inay ka tanaasulaan dacwadda badda ama xitaa waan ka galaan inkastoo ay ka warqabaan xasaasiyadda arintan haddana qaabka ay u maamulayaan kiiskan waxa uu halis gelinayaa kalsoonida lagu qabo dhinaca kalena dowladda federaalka ayaa ku hanjabtay talaabo ka dhan ah cidii masuqmaasuqeeda sheegtay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku hanjabay inay maxkamad la tiigsan doonaan cidii dambe ee Soomaaliya ku sheegtay inay tahay wadan masuqmaasuq hareeyay wasiirka oo ka hor hadlayay golaha aqalka sare ayaa sheegay in muddo badan Soomaaliya lagu sheegay inay tahay wadan aan lagu kalsoonaan karin oo aan wax dhaqaale ah loo dhiibi karin waxaana uu sheegay inay taasi hadda meesha ka baxday
ilaa iyo weligiin baa nala lahaa Soomaaliya laguma kalsoonaan karo waxba looma dhiibi karayo saxiixooda ma shaqeynayo tuugta ugu weyn baa joogta ayuu yiri Bayle ayaa ka hor imaaday qiimeynta sheegaysa inay Soomaaliya kaalinta koowaad kaga jirto qiimeynta musuqmaasuqa ilaa iyo 148 dal waxaana uu yiri 148 wadan ayaa la leeyahay Soomaaliya waxay ka tahay dalka ugu horeeya xagga musuqmaasuqa waxaan leenahay bal halka aynu musuqmaasuq uga caanbaxnay inoo sheega waxa uu wasiirka ugu baaqay hay'adaha caalamiga ee soo saara warbixinada dhaqaalaha inay fiiriyaan qaabka uu u shaqeeyo nidaamka maaliyadeed ee dalka ka hor inta aysan soo saarin warbixinada ku saabsan dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa dalka cid aan eegin nidaamka maaliyadeed ee dalka oo nala fariisan mar dambe ma aqbali doono inay warbixin iska soo saarto maxkamad ayaa la tiigsan doonaa wixii hadda ka dambeeyay ayuu sii raaciyay wasiir Bayle hadalka ka soo yiri wasiir Bayle ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan hanti dhowrka uu sheegay inay maqan tahay lacag dhan 18 milyan oo dollar taas oo la marsiinin nidaamka maaliyadeed ee wasaaradda maaliyadda sidoo kale guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa hore u soo saaray warbixin cadeysay in 42 milyan oo dollar ay ku maqan tahay xukuumadda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku faantay inay joojisay musuqmaasuqii dalka ka jiray hase yeeshee cadeymaha la helaya ayaa muujinaya in musuqmaasuqu ka sii daray markii uu talada qabtay madaxweyne Farmaajo geeska kalena maxay Muna Sharmaan uga baxday qareenada difaacaya Soomaaliya mid ka mid ah qareenada hogaaminaya kiiska badda ee Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa ka baxday guddiga qareenada ee difaacaya dooda Soomaaliya sida ay xaqiijisay dowladda Muna Sharmaan waxay ahayd gabadhii sida weyn loo bartay xilliga ay socotay dhageysigii dacwadda badda ee dowladda Soomaaliya ay geysay ICJ Cali Saciid Fiqi safiirka Soomaaliya u fadhiya xarunta midowga Yurub oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee SNTV ayaa xaqiijiyay in Muna Sharmaan ay ka baxday qareenada difaaca kiiska Soomaaliya waa gabar Soomaaliyeed kiiska maalintii ugu horeysay ilaa iyo goordhow ayay ku jirtay muddo 4 bilood laga joogo ay madaxweynaha la soo hadashay ayuu yiri safiir Cali Saciid Fiqi isagoo sharaxayay sababta ay qareenada uga baxday waxa uu sheegay inay u wareegtay shaqo kale oo ay ka heshay meel kale waxay tiri madaxweyne shaqo ayaan ka helay bangiga adduunka marka waan ka cudur daaranaya ayuu yiri safiirka Soomaaliya u qaabilsan midowga Yurub Cali Saciid Fiqi ayaa yiri Muna qof raacdeen kara ma jiro waa gabar Soomaaliyeed oo muwaadin ah oo runtii istaahisha in loo abaalgudo Muna Sharmaan waxay ka mid ahayd qareenadii ugu firfircoonaa ee doodaha adag la hortagay ICJ xilliga ay socotay dhageysiga la xiriirtay in kiiska u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ay maxkamadda dhageysan karto in la yiraahdo Muna meeshii waa laga saaray ceebay Soomaaliya oo dhan u tahay ayuu carabka ku adkeeyay safiirka oo la hadlayay SNTV Dr. Muna Sharmaan waxay Soomaaliya u matalaysay dacwadda xuduudda badda ee kala dhaxaysa Kenya waxaana ay si weyn uga hadashay sida Soomaalida u aragto heshiiska isfahamka ee Kenya ay ku doodaysay haddaba ma jiro wax war oo dhankeeda ka soo baxay oo sharaxaya sababta ay uga baxday qareenada Soomaaliya matalaya safiirka Soomaaliya u qaabilsan AU waxa uu sidoo kale beeniyay in Soomaaliya ay qoratay qareeno cusub qareenada waa kuwii maalintii ugu horeysay aan kiiska badda geynay ee 2014 ayuu yiri hadalkiisana ayaa jawaab u ah warar baraha bulshada lagu hayay oo sheegaya in qareenada difaacaya kiiska Soomaaliya la bedelay waxa uu ku adkaystay waa kuwii kiiska ku dhex jiray waa kuwii maxkamadda yimid ee daafacay waa kuwii dacwadii soo qoray waana kuwa hadda u taagan in kiiska ay difaacaan maxkamadda ayaa la filayay in dacwadaasi ay dhageysato laga bilaabo 4 ilaa 8 bisha November ee sanadkan hase yeeshee dowladda Kenya ayaa mar labaad dalbatay in arintaasi dib loo dhigo waa markii labaad oo maxkamadda ay dhageysiga dacwadan dib u dhigayso waxaana bishii September ay 2 bilood dib u dhigtay kadib markii ay Kenya codsatay in dacwada dib loo dhigo muddo sanad ah warbixin qoraal oo ka soo baxday maxkamadda ayaa lagu sheegay maxkamadda ay go'aansatay in dib loo dhigo dacwadda badda waxaana maxkamaddu ay sheegtay in labada dhinac loo garnaqi doono 8 ilaa 12 bisha June ee sanadka dambe maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka ay gaartay kadib markii ay dhageysatay labada dhinac balse waxay cadeysay in mar kale aan dib loo dhigi doonin maxkamaddu waxay sidoo kale fartay Kenya iyo Soomaaliya inay ka soo qayb galaan dhageysiga dacwadaasi marka la gaaro xilliga ay haatan u aastaysay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay u hoggaansamayso go'aanka maxkamadda ayna marnaba ka tanaasuli doonin taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya dhinaca kalena shirkadda DP World ayaa shaacisay dhaawac weyn oo ka soo gaaray dagaalka Djibouti shirqoolka ay ka wada Soomaaliya
shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in xiisada kala dhaxaysa dowladda Djibouti ay dhaawac xoogan oo dhaqaale u geysatay shirkadda. Gudoomiyaha DP World Sultan Ahmed bin Sulaiman ayaa sheegay in shirkadda ay dib kala kulmaysay inay lacag ka amaahato bangiyada tan iyo markii dowladda Djibouti ay la wada wareegtay dekada doore leh oo ay shirka ku ahaayeen. Waxaan sameynaa maalgelin balse qiimo badan ayaa nooga baxaya, taasi waa dhaawac ayuu yiri Sultan Ahmed oo ku sugan magaalada Kigali ee dalka Rwanda, halkaas oo shirkadiisa ay 35 milyan oo dollar ku maalgelinayso xarun cusub oo ganacsi. Waxaa yaraaday bangiyadii lacagtana deemin jiray, bangi kasta oo lacagna deemin lahaa waxa uu leeyahay ka waran haddii dalka aad maalgashanaysaan oo idinku sameeyo sida Djibouti. Marka Djibouti wado xun ayay noo furtay ayuu yiri Sultan Ahmed bin Sulaiman. Dowladda Djibouti ayaa dekada doore leh kala wareegtay DP World oo wax ka maalgashatay bishii February ee sanadka 2018 sababa la xiriira muran socday ilaa 2012. DP World ayaa sharci daro ku tilmaamtay la wareegistaasi, waxaana maxkamadda London ee dhexdhexaadinta caalamiga ay bisha Agoosto sanadkii 2008 xukmisay in qandaraaska DP World uu yahay mid sax ah oo aysan Djibouti ka bixi karin. Djibouti waa ay diiday go'aanka maxkamadda. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. Waana mahadsantihiin.